ammaanka magaalada muqdisho ayaa soo hagaagaya bilooyinkii ugu dambeeyay kadib markii ciidamo loogu magac daray ciidamada caasimadda ee xasilinta ka shaqaynaya ay si weyn uga howlgaleen iyadoo warbixin dheer oo arrintaasi laga sameeyana ay sheegayso in soo hagaagaasi ka sokow dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho ay ka cabanayaan sida ciidamadaasi ay wadooyinku xiraan qubaro ku xeel dheer arrimaha amniga ayaa shaaca ka qaaday in duruufahaasi ay jiraan balse loo baahan yahay in iskaashi wadajir ay ka yeeshaan dadka Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya ugurintii telefishinka Universal ayaa ku bilaabanaysa laga soo bilaabo 14 Oktoobar oo qarixii ugu weynaa Soomaaliya oo ka dhacay isla markaana galaaftay dhaawac iyo dhimasho dad ka badan 1000 qof waxa ay soo tarayay dadaalada nabadoonka ah ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed si looga hortago qaraxyada waxyeelada u geysta dadka socotada ee muruqmaalka ah ee la daala dhacaya nolosha xuquuqintu waxay eegaysaa 90 maalmood kii ugu dambeeyay dadaalada nabadda iyo amni dhalinta caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho oo hore u ahaan jirtay kawaankii dadka waxa joogto loo weerari jiray hoteelada goobaha dadka isugu yimaadaan xarumaha dawladda iyo ciidamada dawladda iyo dadka u shaqeeya hay'adaha dawladda weeraradaas ayaa ku salaysnaa in Muqdisho la muujiyo inaanay nabad ahayn waana inta badan eedahaasi dusha loo saaraa kooxda dawladda ka soo horjeeda oo lagu sheego argagixiso laakiin xuquuqintu waxa ay si toos ah u sii faaqidaysaa weeraradaasi raadadka ay leeyihiin inay ka badan yihiin kooxaha argagixisada falalka ay fuliyaan waxaana jira gacno qarsoon oo siyaasadeed oo isugu jira kuwa dibadda iyo kuwa danley ah oo ku salaysan siyaasad dhaqaale iyo cadifado kale oo qarsoon waxaana la cadeeyay in raadadkaasi ay ku leeyihiin dilalka iyo qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho inkastoo aan wali si cad loo soo bandhigin laakiin waa sida ay sheegeen saraakiisha amniga qaar kamida laga soo bilaabo markii madaxweyne Farmaajo la soo doortay Febraayo waxa qorshaha iyo hogaaminta siyaasadda dalka lagu saleeyay in qorshaha koowaad uu yahay amniga si looga gaaro hadafka iyo joodooyinka siyaasadeed iyo qorshaha fog ee 4 sanadood waxaana saraakiisha ammaanka hay'adaha quseeya amniga iyo xukuumaddu ay diyaariyeen sidii amniga caasimadda looga gungaari lahaa si dawladnimada loo dhaqaajiyo inkastoo 3 meelood meel xilligii loo idmaday madaxweyne Farmaajo inuu hogaamiyo dalka ay soo idlaatay haddana waxaa muuqda dadaalo loo qaaday xagga amniga xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxa uu sameeyay qorshe amni oo loogu magac daray qorshaha xasilanta caasimadda oo loogu talagalay in la sugo amniga magaalada Muqdisho ciidamadaas oo ka kooban ciidamo military asluub nabad sugid iyo boolis waxa loo sameeyay qorshe midaysan hoggaan midaysan iyo dhaqaale midaysan waxa loo sameeyay howlgelin joogto ah wacyigelin iyo isdabagal waxaana hareer socday isla xisaabtan iyo in aragti fog oo la hiigsanayo la gaaro waxaana loo xulay saraakiil iyo hoggaan leh hadaf iyo ujeedooyin ay fulinayaan waxaana ciidamadu ay ku guuleysteen markii ugu horeysay in bishii Ramadaan ee tagtay aan wax qaraxi aanu ka dhicin caasimadda magaalada Muqdisho oo caadooyinkeeda uu ka mid ahaa in Ramadaanku noqdo bisha ugu qaraxyada badan sanadka oo dhan inkastoo ay dhacayeen falal argagixiso oo kooxaha bistoolada ku hubaysan ay dilayeen dad isugu jira shacbi iyo ciidamo falalkaasina waxa ay qayb ka ahaayeen amaan darrada magaalada caasimadda ee Muqdisho talaabooyinkaas oo ay qaadayeen ciidamada xasilintu waxa ay u muuqdeen kuwa ka mari dhalinaya amniga waxaana hareer socday kooxo qubaro ah oo dabagelayay isla markaana hagaajinaya howlaha ciidamadaas ay qabanayeen haddana waxaa jira cabashooyin fara badan oo ka imaanayay dadka ku nool caasimadda oo sheegayay in wadooyinka magaalada oo ka kooban in ku dhow 60 meeyo isgoys in ay adkaatay in dadku ay isaga gooshaan taas oo dadku ay dareemayeen ciriiri baasan oo adkaynaya nolosha dadka xoogsatada ah ee ku nool caasimadda magaalada Muqdisho xuquuqintu waxay eegaysaa cabashooyinka shacbiga marka la eego magaalada Muqdisho waa magaalo soo jireen fac weyn waxay leedahay wadooyin fara badan waxa ku noolaa dad lagu qiyaaso 3 milyan oo qof waana xaruntii dawladda dhexe dadka shacbiga badankood waa muruqmaal cagta ku noola
waxa ay leeyihiin ganacsiyo waaweyn iyo kuwa yaryar gacanta ay amniga ku leeyihiin waa yar tahay marka laga reebo in canshuur bixiyayaasha ah oo meheradahooda iyo ganacsatigooda canshuurta ka bixiya mana jiro isweydaarsi xogeed oo dhex mara shacbiga iyo dowladda si ammaanka looga wada shaqeeyo weli ma caddayn hay-adaha amnigu kooxaha shaqada ku leh tirada rasmiga ah ee guryaha iyo dadka ku nool caasimadda muqdisho weli laguma guulaysan in gaadiidka ka yimaada gobollada ee soo gala caasimadda inta aanay soo gelin la hubiyo ammaankooda inkastoo la bilaabay ma jirto qorshe amni iyo mas-uuliyad madaxda deegaanka ama degmooyinku ay qaadeen in dadka degmooyinka ay yihiin kuwa la hubiyey laguna guulaystay inay dadka deegaanka ama degmooyinkaasi la siiyo kaarar hubinaya amaba lagu hubinayo qofka uu yahay qofka halkaasi degan gaadiidka ay dadku wataan ma laha warqadaha muujinaya lahaanshaha oo lagu qeexay qofka halka uu degan yahay ruqsadaha gaadiidka lagu wado lama adkayn sharciga helitaankooda dhammaan wadooyinka waxaa lagu xiray dhagxaan shub ah oo lagu magacaabo askariga shubka ah dhagxaantaasi waa caqabadaha ugu waaweyn ee cabashada dadka intaasoo arrimood iyo kuwo kale oo badan xog ururintu waxay sheegaysaa inay sii adkaynayaan furfurnaanta amniga magaalada caasimadda ee muqdisho waana sababaha in ciidamada wakhti badan ay geliyaan goobaha ay xirtaan raagitaankaasi waxa uu keenaa cabasho marka magaaladu ay isku xanibnaato isku soo duub waxaa isbeddel weyn ku dhacay amniga magaalada muqdisho bilooyinkii ugu dambeeyey waxaana muuqata rawajo wanaagsan oo laga qabo in ammaanku uu sii wanaagsanaado marka laga adkaado kooxaha sida fudud dadka u dila oo weli ka howlgalaya amaba ka howlgalaya gudaha magaalada muqdisho xog ururintu waxay farta ku fiiqaysaa in ciidamada xasilinta loo baahan yahay lagu sameeyo midayn iyo magacbixin hor leh sida ku cad heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dhismaha ciidamada taas oo la isku raacay in maamul goboleedyadu dhistaan ciidamo daraawiish ah oo si gaara u tababaran islamarkaana ay maamulaan maamul goboleedyadu ciidamadan xasilintu waxay ku midoobi karaan daraawiishta gobolka banaadir oo leh talis gaar ah halka ay hadda talisyo kala duwan ka yimaadeen oo weli ay tiradooda hubkooda amarkooda uu weli hoos tago talisyadaasi afarta ah xog ururintu waxay laga maarmaan u aragtaa in la dhagaysto cabashada dadweynuhuna ay kaalin ku yeeshaan amniga laguna saleeyo qorshaha amniga mid ka kooban labada dhinac shacbi iyo dowlad si loo gaaro amni sugan iyo wadooyin furan